Salaamullaahi calaykum akhyaarta waa idin salaamay. Salaan kadib maanta waxaan rabaa inaan mowduuc yar ka hadlo. Mowduucaas oo afkeena hooyo oo afka lagu yiraahdo yacni mother language or mother tongue. Marka waxaan rabaa inaan la fukuro mowduucaas aan idiin sheegay ama afkeena hooye ama afkaaga hooye makarat inaan la fukuro daqiiqadaha soo socdo. Marka waxaan idin leeyahay isku soo noqosho wanaagsan daqiiqada yar. Isku soo noqosho wanaagsan waan isku soo laabanay. Sidaan hore aan kugu sheegaba waxaan ku socon doonaa barnaamijkeenii oo ahaa mother language, taasoo ula jeedo afkaaga hooyo. Beryahan waxaan arkahayay afkii Soomaaliga ahaa oo sii halaabayo. Haddii aad ogaan lahaydeen afka Soomaaliga dhibka laga soo maray iyo rafaadka laga soo maray iyo sida maxay ahayd in la qoro ay ku timid dhallinyaradeena maanta sidaan umana jajabiseen. Waxaan arkayay dad professor isku sheegayo oo professor ku sheeg oo markay wax qorayaan tusaale ahaan haween wanaagsan. What does that mean? Maxay ka wadaan haween wanaagsan? Habeen wanaagsan weeyaan. Xitaa dhanka qoraalka xitaa ku jebinayaan. Waxaad u maleysaa afkeeni hooye in uu sii dhimanayo oo lagu sii tumanayo, lagu sii maxay ahaday god lagu sii ridayo. Annagoo og weliba in afkeeni hooyo dabar go'ayo. Sababta aan ka wado waxay tahay afku cidda iska leh haddaysan ayadu isticmaalin si kale oo uu maxay ahayd ku ballaaranayo ma jirto. Tusaale ahaan waxaan xasuusanaa 2006kii ama wixii ka horeeyay luqadda Englishka waxaa lagu baran jiray wax ka yar 6 months ayaa lagu baran jiray, oo taasoo la micno ahayd in aad taqaano 12 tensiga oo Ingiriiska that's it iyo wax yar oo grammar ah. Intaas oo lagu tiraya waxaa lagu baran jiray 6 months. Haddana waad aragteen inta sano ee la wadayo luqadda Ingiriiska. Markay u yartahay waxaad wadaysaa 3 sano. Taasi haddii isku dardarno ereyada Ingiriiska la isticmaalo waa markay u badato 800 ama 600 oo erey kama badno. Waxaan dhihi karnaa waxaa ka ereya badan luqadeena hooyo ayaa ka hodansan kana wanaagsan mar walbo. Hadda maxaa 2021 iyo last 10 years maxaa isbedelay? Luqadii waa isla luqadii ku hadli jireen dadkii hore iyo luqadda dadku hadlaan waa isku mid. It means wax isbedel ma jiraan. Luqadii waa sideed. It means waxaa lagu sameeyay wax la hayo ballaarin waa la ballaariyay. Tusaale ahaan hadda markaad cashar qaadanaysa camal oo kale Englishku oo ku qaadanaysa English waxaa lagu leeyahay afka qalaad oo loola jeedo luqad kale ama Greek word ama Latin word. It means casharka la qorayo dhani wuxuu ka yimid Greek ama wuxuu ka yimid Latin. Sida awgeed haddana waxaa lagu barayaa luqadda Ingiriiska. Luqadda Ingiriiska ayaa lagu barayaa, taasoo ayaga macnahooda ay ula jeedaan in luqadda Ingiriiska ahayd ay kubciyaan, ay ballaariyaan, ay geliyaan waqti ay dadka ku qasbaan inay luqadda Ingiriiska bartaan. Tusaale ahaan hadda oo kale markaad Turkiga tagto waxaa wax ugu horeeyo maxay ahayd baranaysa English mahna Turkiga barataa. Waad u jeedaan ayaan dhaxdaas markay madaxweynaha Erdogan iyo Biden ay kulmayeen asagoo yaqaano Ingiriiska
madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayuu haddana wuxuu ku hadlayay luqadiisii hooye. taasina waa sharaf. ma ahan inuusan garanaynin, ninkan waa nin jaamici ah, aqoon leh, well educated ah, labada dhinacba, diinina uma yaro, maaldina haba sheegin. ma garad haddana wuxuu door bidayay inuu ku hadlo luqadiisa hooyo, because luqadaada hooyo mar walba waa hodan, waa fingerprint camal ku tahay. ma garad ummadda caalamka waxaa ka tahay muslim, waxaad kasii tahay Soomaali. inaad Soomaali tahay lagu garanayaa, ma ahan inaad baasboor haysatid. ma garad baasboorkana cid walbaa qaadan karto. tusaale ahaan maxaan ka wadaa, maanta baasboorka Kenyaanka cid walbaa qaadan karto, laakiin cid walba Kenyan ma noqon karto. soo marka luqadaada hooyo waa fingerprintigaada. fingerprintigaas wax adiga ummadda caalamka dhan lama wadaagtid, waxaa la wadaagta waa in yar oo la dhaho Soomaali. ma garad tusaale ahaan maxaan ka wadaa, hadda adiga i daawanayo, maxaad i daawanaysaa? inaan isku luuqad nahay, inaan isku af nahay, inaan waxa aan ka hadlayo aad fahmayso. sooma aaway ummadihii kale ma i daawadaan, ima daawanayaan, mana i fahmayaan. sidaas la mid ah marka tusaale ahaan UNESCO 2013kii waxay soo saartay xeer cusub oo la leeyahay 21 February waa in loo dabaaldegaa afka hooyo, oo laga wado qof walba afkiisa hooyo 21 February oo dabaaldego. maxaa qiimaha ee leedahay in afkaaga hooyo oo dabaaldegto? tusaale ahaan haddii afka hooyo waa luqada keliya ee aan iskuul loo tegin ee haddana la barto, canuga marka uu yaryahay hooyo wuu dhihi karaa, laakiin haddana ma qori karo. hooyo wuu dhihi karaa, haddana ma qori karo. markuu 5 jir 6 jir gaaro, haddana ereyga soo isu isticmaalayo wuxuu noqonayaa perfect. ma garad hadhow marka canugii inuu afkii sii barto ama uu qoro way u fudaanaysaa. ma garad hadda aniga waxay ila tahay inaan ka faa'iidaysano awowayaasheen ama dadka inaga weyn. tusaale, haddaad maqasho oday Soomaaliyeed ayaa dhintay ama qof da ah oo Soomaali ah ayaa dhintay, ogow afkii uu sii dabar go-ayaa because of odaygaasi dhintay. afkii buu la dhintay. soo u hadlayo aniga uma hadli kara maanta. aniga maanta saa u hadlaayo uma hadli karaan, jiilka aniga dambeeya uma hadli karaan. sababtoo waxay tahay isku af Soomaali ma noqonayno. tusaale ahaan hadda afkeena hooyo markii la qoray kadib waxaa xataa aan erayo amaahinay, luqadda Ingiriiska erayo amaahinay, Ingiriiska ayaan amaahinay ereygaasoo garanuug. hadda garanuug annaga haddaan qof weydiiyo mataqaana aan dhaho garanuug, haa wuu ii sheegi garanuug. wuxuu ku leeyahay waa xayawaan noocaas ah, geese leh, waxay ku nooshahay halkaas, keemahay ku nooshahay. Ingiriiska markuu Afrika yimid, especially Soomaaliya markuu yimid, wuu xayawaanadaas arkay, magac wuu u bixin waaye. marka magaca annagii unbuu xogo yar farsameeyey, garanuug unbuu ku qoray. ma garad soo ilaa hadda waxaa la dhahaa garanuug. ereygaas af Soomaali haddaa arta xataa Ingiriiska kusoo raadiye oon garanuug caadi ah ma kasoo helaysaan. taasi marka maxay keenaysaa? dadkii waagaasi joogay qiimaha badnaa, sharafta badnaa waayo halka ay gaarsiiyeen luqadeena hooyo. marka aan isku dayno ilmahanaga inaan afkeena hooyo wax ku barno, afkeena hooyo balaarno, afkeena hooyo wax ku sharaxno, afkeena hooyo aan ummadaha kale xitaa aan u turjunno. ma garad hadda tusaale ahaan Google-ka kale waxay sameysay waxa la hayo casriyeyn, luqadii way casriyeysay qaabka wax loo turjumayo. isku mid ma inta tusantaankii markaad Soomaali ku turjumayso English iyo English Soomaali isku mid ma ahayn, khalad error fara badan jira. laakiin hadda xogo waxaa u maleysaa in la hagaajiyo errorkii, juhdi la geliyey awgeed. waxaasna waxaa ka shaqeeyay dad aqoon-yahano oo Soomaali ah. professor ma tihid haddii aad luqadaada hooyo si fiican u garanaynin.
afqalaad aqoonta miya waa maya afqalaad aqoonta ma ahan. Afkaaga hooyo iyo aqooni ku jirta, aqooni ka buuxda. Tusaale ahaan dhanka kale culimada maasha Allah afkaaga hooyo wax lagu barayaa intaasoo kutub oo sharaxan oo dhigan oo carabi yaa waxay kugu akhrinayaan kugu fasiran Soomaali ahaan markaas macaankeedii aad ka dhigaysaa. Marka waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkayga inaan afkeena hooyo wax aan ku qorno, wax aan ku akhrino, dadka kalena aan ugu turjumno in afku qiimo leeyahay. sidaas la mid waxaan kula talin lahaa culimada horta ay way dadaaleen maasha Allah oo hadda dhinaca diinta kale it means wax lagu bartay oo kitaabada dhan waxay wax ku qoray hadda luqadda carabiga kale way dabar ku ilahayd haddaysan diinta islaamka ahayn way dabar ku ilahayd. waa adiga arkay maanta haddii aad wadamada carabta tagto oo aad Ingiriis kula hadasho way ku xishmaan respect ku siinayaan. laakiin haddii aad carabi kula hadasho inta saas lagu fiiriyo yaa laga aamusa. laakiin markaad how are you dhahdo madaxa kula waa fiican way kula sii wadaayaan way ku qoslaayaan. marka si aanan u noqon carab oo afkanaga u dabarku-in ilaan carabtu afkeeda uu dabarku ilahaa haddaysan diinta islaamka ahayn way dabarku ilahaa qur-aanka xifdinaayo. sidaas la mid afkeena hooyo waa qaali aan ilaashano. dhalinyaro afkiina wax ku qora, afkiina wax ku barta, afkiina marba doorbida idinkoo luqadda yaqaan xitaa isku daya inaad luqadan qalad iska dhigtaan oo afkiina aad isticmaashaan. luqadda kalaad ku hadlin kuma dhahayo oo wax u barata waa baahi, laakiin marba luqadda kuwaad farasta ku ahaato. waana mahadsantihiin asxaabta. salaama min kulli aafa.